Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta ku xiran buuggeeni kitaabul muxaadatha alcarabiya almucaasara lilmubtada'iin meel walbo aad joogtaanba ku soo dhowaada waxaynu bartamaha uga jirnaa kitaabkaas waxaan isla soo gaarnay qaybtii dhexe ama qaybihii dhexe ayaan isla soo gaarnay weliba alxiwaaru saadis cashara ayaan maraynaa oo aynu ka bilaabaynaa الحوار السادس عشر أو وذا شيكيسيجي لحية طبنات الحوار السادس عشر وذا شيكيسيجي لحية طبنات وعنكو سابسن يهي عن الحافلة بسكة عن الحافلة بسكة أو أن بسكي وذا شيكيسيجي وحاكو جرى أو قيبك أو كود هادلية نور إيو رفعة ولبها بلوت أما لبقف أو دمر أو نور إيو رفعة nuura ayaa hadal ku bilowday hal ya'tii albaasu basku miyuu imaanayaa mubakiran xilli hore nuura waxay leedahay hal ya'tii ma imaanayaa albaasu baska mubakiran xilli hore ama ciyowdii miyuu imaanayaa rifcatun waxay tiri axyaanan mararka qaar yata'akharu dib buu usoo dhacaa 5 دقائق 5 دقيقة أحيانا مرمرك قار يتأخر وصودها ويدب أصودها 5 دقائق 5 دقيقة نورا وحي الله أرجو وحنفليا أن يصل اليوم ما أنت إنه نسوغاره في الوقت وقتك لو طلق ليوا ووقتك إنه يماد أيام فليا أن رجينيا أرجو waxaan filayaa oon rajaynayaa an yasila alyawma maanta inuu noo yimaado oo na soo gaaro fil waqti waqtigii loo baahnaa ama waqtigiisii inuu ku yimaado rifcatun waxa ay tiri laa taqlaqii ha walwalin huwa qariibun wuu dhow yahay laa taqlaqii ha walwalin huwa qariibun wuu dhow yahay huwa qariibun wuu soo dhow yahay ee ha walwalin huwa qariibun waa mid dhow oo soo dhow yahay nuura waxay tiri jayidun waa hagaag way fiican tahay laa uriidu ma rabo way at-ta'akhura inaan dib uga dhaco can darsi casharka laa uriidu ma rabo at-ta'akhura inaan dib uga dhaco aan ka soo daaho can darsi casharka inaan ka daaho anigu ma doonayo rifcatun waxay tiri walaa ana sidoo kale walaa ana sidoo kale inaan dib uga dhaco cashirka aniguna ma rabo nuura waxay tiri huwa daaka waa kaas huwa daaka waa kana baski jaa albaasu baaskii waa uu yimid jaa albaasu baaskii ama baabuurkii baska ahaa waa uu imaaday rifcatun waxay tiri hayaa narkabu aan fuulnahe hayaa narkabu aan korno aan fuulno oo aan raacno hayaa narkabu aan raacno waa hagaag wada sheekaysigeeni 16aad ee maantana ay ku saabsanaa canil xaafilati baskii halkaa ha inoo joogo waxaana qayb ka ahaa wada sheekaysiga nuura iyo rifcatun labadaas hablood ayaa iswadhaafsanayay cashirkan cashirka xiga intaan ku kulmi doono dhammaantiina waxaan idin leenahay isma dhaafno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu